السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وبعد. والعليال runtii maanta dareenkayga iyo shucuurtayda waxaan koobi kara ma aha mana filayo runtii hadalkayga inaan dhammaysan karo. aad baan runtii u faraxsanahay. daa'iman waxaan iraahdaa markaan ka tegayay magaalada muqdisho xamar markaan ka tegayay runtii kamaanan tegin keligay kamaanan tegin bal dadkaygii iyo dalkaygii waxaan ku sii qaatay qalbigayga. intii aan ka maqnaana waxaad ku nooleydeen qalbigayga. dalkaygu wuxuu ku noolaa qalbigayga 27 sano weeyaan. qalbigaygu ku noolaa idinkuna qalbigaygaad ku nooleydeen. halkaa iyo qaahira ayaan qalbi idin kala soo hadlaayay. waxaa isoo celiyeyna runtii waa qalbiga aynu ku wada xiriirnay weeyaan. waxaan marka maanta waxaan si runtii qalbi ah aan uga cudur daaranayaa daahitaanka marka hore aan idinka soo daahay intiina joogta iyo weliba dadka la sheegaya ee nusmilyuunka dhaafay ee bannaanka taagan airbortka ilaa iyo lambar 4. aad iyo aad baan runtii uga cudur daaranayaa in aynaan is arkin iyo inay soo geli waayeen hoolka. runtii dadku ma aanay filaynin in magaalada barkeed uu soo baxayo oo ay u soo baxayaan walaalkoodii ay jeclaayeen inay u soo baxayaan mawduucan dhegahooda gaaray ee cafi walaalka uma aanay malaynayn. waxaan 1,000 jeer ka cudur daaranayaa walaalaha qoraxda taagan bannaanka waddada dheer ilaa iyo lambar 4 xiray. iga raalli ahaada. ilaahayna waxaan idinkaga baryayaa dadkiina bannaanka jooga ilaahay marka hore dembigiina inuu dhaafo, in ilaahay tallaabada aad soo qaadeen uu idinkugu cusleeyo maalinka qiyaamaha ah miisaankiina xasanaadka ah. laakiin waxaan ballan qaadayaa haddii ilaahay igu simo naftan beentaa uu i gaarsiiyo usbuucan gudihiisa in inta ijecel oo dhan samaha jecel oo dhan in aan mar kale hor istaagi doono meel halkan ka ballaaran. iyo waxaan u soo galay cudurdaarkaas iyo inaan is aragna in yarna waa hadlaya hadduu ilaahay yiraahda. walaalayaal mawduucan aan doonayo in aan dhegihiina maqashiyo waxaa la yiraahdaa cafi walaalka cafi. barnaamijkan aad arkaysaan runtii ku tijaabin maayo dhulkayga hooyo, bal inta aanan tijaabinin waxaan ku soo tijaabiyey Kenya, waxaan ku tijaabiyey Tanzania, waxaan ku tijaabiyey Uganda. waxaan arkay miraha macaan ee uu leeyahay barnaamijkan cafi walaalka. waxaan arkay mirihiisii hoolkii aan ka dhigayay iyo dadkii aan hor taagnaa aniga oo aanan ka tegin ayaa waxaan wallaahi arkay ilaahay i tusay uurkooda iyo qalbigooda nadiifka ah iyo sida laysu gacan qaaday. ma aha qawda maqashii waxna ha u qaban, ma aha inta laysgacan qaado bannaanka marka loo baxana meeshii laga sii bilaabo xasadkii iyo xumaantii. bal si dhab ah ayaa laysu cafiyey. barnaamij marka waxaan idin sidaa
aan mirihiisii arkay macaankiisii arkay raaxadiisii farxaddiisii arkay barnaamij aad u culus cafi walaalkaa walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu barnaamijkan cafi walaalkaa kala hadlay khayru khalqi illaah muxamed ibn cabdillaah sala allahu calayhi wasalam wuxuu mar kale kala hadlay rususha oo dhan marka laga reebo ninkii insaanka u qaalisanaa abaabakru sidiiq ayuu haddana kala hadlay kadib buu haddana insaankii oo dhan ayuu hal ilaahay ogala hadlay barnaamijkan cafi walaalkaa xabiibkeena markuu la hadlay horta markii uu inala hadlay ideelkeen ilaahay wuxuu leeyahay wasaaricuu ilaa magfiratin min rabbikum wa jannatin عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ودقدق أيو ليهي دكا بنانك الجوغة إيمانك آنا إيمانا وحانوغو بشارين يا إذن كوبا waxa aad u soo degdegteen aad hooyo reerihiini ciyaalkiini guryihiini waqtigan aadka u adag aad uga soo tagteen bal duhurka ilaa imika banaanka aad u taagan tihiin ma aha sheekh Kenyaawi inaad indhaha ka qaadaan ma aha inaad maxamed sheekh Ibraahim Kenyaawi aad aragtaan bal waxaad u soo degdegteen wax ka qaalisan Kenyaawi waxaad u soo degdegteen waa dambi dhaaf alle weeyaan waxaad u soo degdegteen waxaad u soo degdegteen waa jannooyin ballarkoodu ka weyn yahay 7 sano iyo 7 dhul uu ka weyn yahay u soo degdega dambi dhaaf iyo jannooyinka yaa iskale yaa la siinayaa waa dadka nafaqeynaya waqtiga adag iyo waqtiga kale waxa aad nafaqeynaysid adigoo wax taraya marka adigoo xoojinaya oo wax taraya oo dadkii anfacaya oo wanaag u waday ku dhagaxay ayay ku haleynayaan ayay ku dulmaayaan waxa la yiri markaas wal kaadimiina al ghayda wal aafina 'anil nas yaa iskale jannooyinka ay dambi dhaafka adigoo wanaag sameynaya lagu dhibaateynaya ideelkiin waa lidin wada dhibaateeyay bal dadkii aad wax barayseen baa idin dhibaateeyay waxa idin dhibaateeyay ubadkiini baa tahriibayo urkiini murug geliyay wax walba waa laydin dulmay kii jaarka ahaa baa ku dulmay waxa ku dulmay kii kale ee maaragtaa aad adiga gacanta ku haysaa ku dulmay waxa laynagu sameeyay oo dhan ee dulmiyaynu kala tirsanayna ee aynu kala fognahay in kala geeyay rasuulkii iyo waxa lagu soo sameeyay Abaabakr Sidiiq radiyallahu anhu wa ardaa laakiin ilaahay baa daaweeyay arrinka isaga ah ilaahay wuxuu yiri wal kaadimiina al ghayd ayaa jannooyinkaas kale kuwa marka wax loo geystay dhibaato uurkooda aanan muujinayna uurkooda ku qariya oo dadkana cafiya wallahu yuhibbul muhsiniin ilaahay wuxuu jecel yahay dadka wanaagga sameeynaya muhsiniinta ah qofka cafinayo waa muhsin ihsaankuna waxaad garanaysaan waa darajada ugu sareeya darajaadka diinta iimaanka iyo islaamku ka sareeya soo ma ogidin محسن سيكون غني وولالك إناد عفيسيد حبيبك أكالي محل يري فاعف عنهم كوان كعيجي ليغا كاكيني إلي قاقي بربريي كعايي كفولحميي كدلي رب فاعف عنهم عفي واستغفر لهم إلهي نقبري كذب سوماها قلبي جنون نظيفة وشاورهم في الأمر ورهدي للدولة يوضن كان إني إصلاحيه قال إن لقوم إصلاحيه قلبي باللقو إصلاحيه haddii la doonayo in la iscafiyo mashruuc la soo qaatay la isku cafiyo la wareejinayo waxa la isku cafiyaa waa qalbiga la iska cafiyaa diinteena cafis ugu horeysay ma aha mashruuc maanta bilaabanaya cafiskaad arkaysaan kana waxaan ku wadnaa waa ilaahay dartii waxaana qabsoomo daa'iman meel maro ilaahay oo garab gala waxa ilaahay dartii loo wado inna salati wa nusuki wa mahyaaya wa mamati lillahi rabbil alamin wax walbo aynu qabanayna hadaynu doonayno wadankan inaan islaaxina qalbiga waa inuu ka soo go'a cafi waa la yiri rasuul sallallahu alayhi wasallam Abaabakar maxaa la yiri wiilkii misdax ahaa ee Aisha umuna Aisha darkiisa ay dhaqi jirtay canjeerada u karin jirtay ayaa maxaa lagu sameeyay wuu ceebeeyay wuxuu yiri gabadhan waa zaaniyad Abdullah ibn Ubay ibn Salul ayuu garab galay gabadhii wax u karinaysay Abaabakar ee rasuulku qabay sallallahu ayuu caayay Abaabakar waxana gurigii buu ka cayriyay waa la dulmay Abaabakar ولا عيريي مركز إلهي وحو يري ها عيرنين
محايلي وليعفوا وليصفحوا هعفيانا مارك هاي هسامحانا ألا تحبون أن يغفر الله لكم سو مرة كان إنه إلهي إذن عفيه مدوني سن إلهي إنه إذن عفيه مدوني سن إلهي إنه إذن عفيه والي إذن وضع الظلم إذا الكينة مدوني سن انت دونيسا إنه إلهي عفيه مالك قيامة عز إلهي ويلقع مهتاغن قعمها هتاغانا قعمها هتاغانا انت دونيسا إلهي إنه عفيه كاميرا دي يوقبو كاميرا دي يوقبو إلهي وحن كبر يايا إلهي وحن كبر يايا إن أنت ما أنت هالكن جوتا ما بنانك كتاجي قعمها يتاجا أنت دون أنت تاجن إلهي إنه عفيو إلهي هيدن عفيو إلهي هيدن عفيو قفول بقلبك ولالكي وناك أقلي إلهي وناك أقليو أورك إلهي هيدن سميو مالك قيامة واحد جنة قالوا دتك ولالكي قلبك أصف يا إلهي وحن كبر يا مالك قيامة الجنة إنه إذن جيو مع الحبيب إنه إنجيو قعمها الدجية الله إذن بركيه بلن وحان إذن كقاضية دتك صوبة حيمانتا أنت وليبا لغيبي تلفون ذو الغريبة وهالصوت حين اللي يري ماشي وين بحسنتيه رير حمر مقالة مقدشو بلن وحان قاضية اسبوعا دحديس وزارة دي وإلى السعوطة وزارة الأوقاف هي أرمها الدينتا كنتي وحا ما أنت هالكن وناقا نظر كيسان ولكن وحا إذين كان ووزارة الأوقاف أرمها الدينتا وزارة أرمها الدينتا ويان أوه قاني الشيخ نور وحاك لأوان كنتي وزارة iyo shacabka reer muqdisho oo dhan madaxii shacab waxay ka shaqayn doonaan walaalkii maxamed sheekh ibraahim kenyawi in uu mar kaliya maahane in badan uu idin soo hor istaagi doono qalbiyadiinuna ay is arki doonaan allah idin barakeeyo waxaan mar kale ka cudur daaranayaa walaalaha banaanka jooga iyo dulqaata waa idin la jooga talaabadiinana bal waxa ilaahay baa idin ka abaal marinayay dadka banaanka joogay mismalyuunka la sheegay la arkayo ee wadada xiray ilaahay waxaan kaga bariyaa miisaankiina xasanaadka allah idin yeelo dulqaata aad baa idin salaamaya ballanteena waa cafi ha ogolaanina mashruuc in lagu qaato meelaha inta wax laga soo qaato in cafis la yiraahdo wax soconaya ma aha waxa idin deeqa waa qalbi waa barnaamij qalbi ka soo go'ay waa barnaamijkii xabiibkeenu waday waa barnaamijkii ilaahay leeyahay wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfir Allah lakum aad ban idin salaamaya waliba barnaamijyo kale magaalada idin kaga sameyn doona oo ah shaqayso ha shahaadine waad aragteen bayla tahay عذر دارة مقالة وحواي ولا لها سنين كقيب قاتان ولا ربي حقوق علم في أركان مركا دلقاتا آدنا الذين سلام يا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله